السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي soo dhawaada waa walaashiin Umu Mansuur. waxaan idin leeyahay adduunyada meel kasta ka joogtiin ciid wanaagsan kula caam oo antum bikheer. waa walaashiin Umu Mansuur oo idin leh waxaan idinkugu hambalyeynaya munaasabada ciida oo ciid al adxaga ah oo hadda maanta aan ciideyna anaka dhan dhammaantiin. waxaan idin leeyahay kula caam oo antum bikheer. allah taqabbal minna wa minkum saalix al acmaal. videogeena maanta wuxuu ku saabsan yahay mawduuc yar oo aan rabo in la wadaago waayihii hadda ugu dambeeyana aan aad ugu mashquulay. marka soo dhawaada gambarkiina soo qaata. aqwaad horta sidaan ognaaba youtube-ka aad iyo aad ayaan uga maqanahay waayihii hadda dambe oo muuqaaladeyda aad ayay u yaraadeen. tiktok xataa aad aan uga maqanahay inaan videoyaal badan soo duubo. aad ayay aan waqtiyadii lasoo dhaafo u maqnaay. youtube-na waaba kasii daran tahaba sababta youtube videogiisa wuxuu u baahan yahay in la duubo, wuxuu u baahan yahay in la edit gareeyo, wuxuu u baahan yahay duubistiisa kahor in la diyaariyo oo wax iska macquul ah ama iska sameeyo cuntaa karinaysa ama hoolaa qabinaysa ma ahan. waa mar walba mawduuc hadaa ka hadlaysin mawduuci soo diyaarisid, mawduuci usoo diyaar garowdid ama waqti iyo juhdi ayuu u baahan yahay. waayahan dambeeto sababta igu kaliftay inaan youtube aan ka maqnaado ama social media dhan aan ka maqnaay waxaa u sababa qofka bini-aadanka markii uu rabo go-aan in uu qaato aad ayay u adag tahay. go-aan qaadashada dadna way u fududay, dadna way ku adag tahay. waxay kaloo ku xiranta go-aanka aad qaadanaysid waa go-aan noocee ah, sababta go-aanada dhan isku wada mid ma ahan. aniga waqtiyada hadda ugu dambeeyay go-aan aad iyo aad maskaxdeyda u mashquuliyey, igu kalifay waqti badan in aan ka fekero, walwal badan igu haayay, walbahaar badan igu dhaliyey ayaan qaadanayay. sidaa darteed waxay kaliftay in aanan rabin inaan videoyaal duubo, in aanan rabin inaan waxba ka hadlo, in aanan rabinin inaan wax sameeyo. sababta video markaad duubaysid, marka adiga happy tahay, faraxsanta ayaad video sameyn kartaa. laakiin adiga markaad maskaxdaada maanta dhan isla hadal ay ku jirto, maanta dhan adiga waraysi gudahaada naftaada aad la sheekaysanaysid, inaad video duubtid way kugu adag tahay. mar walbana qofka markuu kamerada soo hor istaagayo qof walbo nooc ayuu jecelyahay. ani waxaan jeclahay kamerada markaa hor imaanayo happy inaan ahay, alxamdulilah. mar walba ilaahay farxadda noo siyaadiyo, inaan faraxsanahay, in mawduuca aan ka hadlayo si kal iyo laab aan uga hadlo ayaan jeclahay. oo dadku isku wada mid ma ahan. qof walbo qof ayaa laga yaabaa soo xanaaqsan inuu haddana messageka uu rabo uu si fiican u gudbi karo. qofna waxaa laga yaabaa haddii uusan asaga faraxsanayn inay ku adag tahay inuu markaas messageka uu rabo uu si qurux badan oo u gudbiyo. aniga dadka noocaas ayaan ahay. haddii aanan happy ahayn ama aanan faraxsanayn ma gudbin karin message qurux badan, ama sida aan rabo qofka uguma gudbin karin wixii aan markaas rabo in aan u gudbiyo. adduunyada markaan baaritaan ku sameeyey mawduucan oo aan isku dayay wax badan inaan ka aqriyo ama wax badan dadka ka sheekeynaya aan dhegeysto. adduunyada go-aanadu dhowr go-aan ayay u kala baxaan. sida go-aanka maalinlaha aa qaadanaya sidoo kaleeto maxaan cunto kariyaa, maxaan maanta dhar xirtaa, inteen aadaa, goormaan seexdaa, goormaan soo kacaa. waa go-aano yaryar oo iska routine ay dhahaan ama wax maalinlahaaga ah oo si kuugu dabiici kuugu saabsan ama aad si dabiici mar walbaba u samaysid. sababto maalin walba ayaad rabtaa inaad cunto cuntid, maalin walba ayaad rabtaa inaad cunto karisid, maalin walba ayaad rabtaa in aad go-aanadaas qaadatid. oo waa go-aano aan fikir badan iyo juhdi badan aan u baahnayn. go-aamada waaweyn markay noqoto oo aadka u waaweyn ama aadka u ballaaran, kuwaas waa inta badan kuwa u baahan qofkii inuu go-aan kasuu ku qaadan lahay ay ku adkaanayso, ama uu u baahan yahay juhdi fara badan inuu geliyo, ama uu u baahan yahay in laaxad uu ka fiirsado. dadkuna isku mid hase ahaatee ma ahan. go-aanaduna dhowr nooc ayay u kala baxaan. maanta qof hadduu rabo inuu
ka feke oo go-aan ku qaato kale guri miyaan gataa wadanka miyaan ka guuraa magaalo kale maan aadaa wax maan soo gataa shaqo cusub maan bilaabaa iskuul cusub maan bilaabaa cunugeyga maan iskuulka bedelaa iskuul kale maan geeyaa aad ayay go-aanada maaragtay u kala baaxad weyn ama ay u kala miisaan culus yihiin aniga Umu Mansuur ahaan go-aanka aan qaadanayay ama go-aanka aan qaatay waa go-aan aad iyo aad culayskiisa u wato waa go-aan aad iyo aad aniga shaqsiyan igu adag waa go-aan dadka kaleeto oo bulshada ama dadka aan saaxiibada nahay ama dadka aan friendka nahay ama dadka ma aragtay aan aniga aan dee isku dhownahay xataa markii ay maqlaan ama markii aan u sheego go-aankaas inaan qaatay ama sidaas inaan damacsanahay way wada naxayaan way wada yaabayaan way amakaagayaan qaaf isla markii qaar waxay igu oranayaan qof xun ayaa tahay sidaas inaad samaysid ma ahan xaq uma lid sidaas inaad samaysid ma ka fekerin miyaa go-aankan dhibaatada ka imaan karto dhibaatooyin fara badan ayaad kala kulmi kartaa ha fiirinin maaragtay faa'iidada kaliya dhanka dhibaatada ma ka fiirisay hadda waqtiga lagu jiro laysma aamini karo waqtiga hadda lagu jiro waa waqti adag waqtiga hadda lagu jiro maaragtay waqtigii oo maaragtay bili-aadanka wax walba ayaad ka filan kartaa sidaas inaad samaysid ma ahan imaad ka fiirsatid maxaad saas u sameynee maxaa kugu kalifaya go-aankaas inaad qaadatid maxay tahay maaragtay sababta keenayso in aad sidaas samaysid aniga laakiin Umu Mansuur ahaan waa maaragtay go-aan aad iyo aad maaragtay qalbigeyga iyo maskaxdeydaba dab iyo holac ku shiday waa go-aan maaragtay markaan qaadanaya xataa qaadashadiisa ay igu adag tahay waa go-aan markaan maaragtay xataa qaatay kadib sida aan nafteyda maaragtay uga dhaadhicin lahay ama sida maaragtay nafteyda ay u aqbali lahayd uu adag yahay qof kasta oo mowqifka aniga aan maanta taagana way ku adag tahay qof kasta oo go-aanka aniga aan qaatay oo kala qaatana aad ayay noloshiisa ugu adkeed ama aad ayay saameyn fara badan uu ugu sameeyey inuu go-aankaas qaato laakiin mar walba waxaan ka fekeraa ama mar walba waxaan aniga maskaxdeyda aan ku hayaa marka aniga aan go-aanka qaadanayo qof bili-aadan ah iguma samayn karo saameyn oo in aan qaato go-aankaana iguma dhiirigeli karo in aan go-aankayga ka laabtana iguma saameyn iguma yeelan karo dadka kale hadalkooda maxaa yeelay go-aanka markaa qaadanaysid adiga maskaxdaada ayaad ka qaadanaysaa qalbigaada ayaad ka gaaraysaa dareenkaada ayaad la wadaagaysaa dantaada iyo danta faamilkaadaba mar walba adiga ayaa og maxaa faamilkaaga u dan ah maxaa adiga kuu dan ah maxaad u qaadatay go-aanka intaas la eg sababta mar walbaba qofka asaga ayaa og marxaladda uu ku sugan yahay iyo sida uu uga bixin karo iyo sababta uu go-aankaas u qaadanayo laakiin bili-aadanka maaragtay way iska hadlayaan bili-aadanka maaragtay qofka Soomaali ayaa waxay tiraahdaa habar fududaa legdan la fudud waa maamaha aad iyo aad maaragtay cajiib u ah saameynteedana yeelan karto haddii uu qofka maaragtay waxa markaysan asaga haysanin way la fududahay inuu hadalka dhaho ama inuu fikirka dhiibto aad ayay ula fududahay laakiin mar walba bili-aadan aad tahay go-aan aad qaadanaysid sabab ayaa kalifayso go-aanka kugu dhalinayso sabab ayaa kalifayso kugu keentay in aad go-aankaas qaadatay ama in aad u bareertid go-aanka intaas la eg saameynta intaas la eg adiga kule faamilkaaga kule in aad qaadatid bulshada ama saaxiibada ama dadka adiga dadka ugu dhowna ay u arkaan inuu go-aan qaldan yahay laakiin mar walbaba ugu dambeyn go-aanku waa wax adiga kaa go-o waa maaragtay fikir aad adiga maaragtay go-aansatay ama go-aan aad adiga gaartay oo qofna uusan saameyn ku yeelan karin ama uusan isbeddel ku samayn karin aniga Umu Mansuur ahaan go-aankan waxaan go-aansaday waqti aad iyo aad u fog in aan gaaray in aan tallaabadaas aan ku dhaqaaqo sababta maxaa yeelay bey-adda aan jooga ayaan ogahay bey-adda aan degana ayaan ogaa waxay tahay waddankan degana ayaan oga waddankuu yahay inay waddan gaala yahay waan dareensanahay inuu dalan dalkeena ahayn waa dareensanahay in ma aragta dal faa'iidadiisa iyo maaragtay dhibaatadiisa ay fara badan tahay inuu yahay waan ogahay laakiin haddana aniga oo alxamdulillah maanta nimcooyin fara badan haysto
aniga oo maanta aad iyo aad nimco u fara badan haysto oo maanta waxba dhibaato aysan i haysanin, hooyo shaqaysata aan ahay, maaragtay oo caruurteeda si qurux badan u korsanayso, maaragtay xaajigeeda mar walba uu garab taagan yahay, uu garab siinayo, uu ubadkii la korinayo, uu howsha haddana la qabanayo, oo wax walba uu la sameynayo. ilaahay maaragtay ajir ha ka siiya iyo xasanaad, sababto mar walba anoo og inay waajibkiisa tahay, haddana waxaan jeclay inaan uga mahad celiyo, sababta qofkii inuu ku wanaajiyo asaga ayaa mar walbaba go-aankeeda iskale. hadduu rabana wuu ku xumeyn karaa zawjkaada, hadduu rabana wuu ku wanaaji karaa. wax adiga aad qasab ku keensatay ama wax adiga awood aad ku leeda ma ahan inuu ku wanaajiyo, waa wax asaga iyo kartidiisa iyo raganimadiisa ka turjumayso. aad ayay iigu adkeed in aan maaragtay wiilkayga curadka ah oo sida inta badan ba aad ii taqaaniin Uma Mansuur aan maaragtay ku magaciisa aan youtube-ka kusoo galo, meel walbana kusoo galo, la iiguna yeera maaragtay Uma Mansuur, in aan go-aansaday ani asaga in aan kala dheeraano oo maaragtay waddanka Finland in uu ka tago oo waddankii hooyo in uu aado. aad ayay iigu adag tahay, maxaa yeelay hooyo ayaan ahay, hooyo la-aan ayaan soo koray. waan dareemi karaa hooyada maaragtay in qofku uu hooyadiis la nooleyn xanuunka ama saameynta ay ku yeelan karto isagoo aad u yar, oo hadda lee 6 sano buuxinayo 19 bisha. iga raali noqda videoga waan jaray. 19 bishaan 7 oo 2022 oo maantana ay 9 marayso, 10 beri kadib ayuu wuxuu noqonaa 6 jir, oo hadda 6 sano wuu ka yaryahay. anigana wuxuu iga tegay 3 bishii 7 ayuu iga tegay 2022. saacadda hadda aan la hadlayo waa ciidii ugu horeysay oo aniga asaga aanan isla ciidin, oo meel aniga iga dheer uu ku ciido, oo laakiin waddankiisii hooyo ayuu ku ciidayaa, oo wuxuu ku ciidayaa magaalada la dhaho Burco. wiilkayga curadka ah inuu iga dheeraado aad ayay iigu adag tahay, laakiin sababta aan go-aankaas u qaato waxay tahay waqtiga hadda lagu jiro iyo in ay u baahan inuu dalkiisa hooyo soo barto, luuqadiisii soo barto, diintiisii soo barto, ehelkiisii iyo qaraabadiisiina uu soo barto, oo waqti uu la qaato. waxaana rajeynayaa muddada uu iga maqan yahay in ma aragtay uu nolosha ay u fududaato. waddankii maaragtay dad waaridkiis ayaa haysto, meel cidlaama joogo, idadiis macaan ayuu la joogaa, inuu ma aragtay waayuhu iyo waqtigu maaragtay inay caawiyaan, oo maaragtay uu noqdo nin u dulqaato hooyo la-aanta iyo waddan hooyadiis iyo aabihiis ka dheer iyo walaalihiis inuusan la noolayn. wiilasha kaloo aan haysta 3 wiil ayaan haystaa. labada yaryar xataa maalin walba way weydiinayaan goorma ayuu soo noqonayaa, aboowaheen halkuu aaday, hooyo goormuu imaanayaa. saameyn aad u fara badan ayay igu sii yeelanaysaa, laakiin ilaahay waxaan ka baryaa go-aankayga inuu ka dhigo go-aan maaragtay wanaagsan, inuu go-aankayga go-aan qeyr qaba iiga dhigo, inaa aniga iyo asaga oo midaan ku liibaano dhammaan faamilkeena inuu ka dhigo. go-aankaas ay ahayd go-aanka aan qaatay, waqti fara badan igu qaatay inaan ka fekero, ilaa haddana qalbigayga maaragtay uu ka walaacsan yahay, uu maaragtay 100% happy uusan ku ahayn, laakiin mar walbaba danta guud ayaa wax walba ka muhiimsan. waa walaashiin Uma Mansuur oo idin leh ha iga iloobin in aa maaragtay ducada igu soo caawisid, commentiga igula wadaag haddii adiga aad horay u qaadatay go-aan in aad ilmahaada go-aansatay in aad waddankii geysid ama meelaan adiga joogin ay ku noolaadaan. maxaa positive ahay, maxaase negative ahay. videoga xiga intaan ku kulmi doono waa walaashiin Uma Mansuur oo idin leh